أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. magacaygu waa Sufyaan Sheekh Axmed Sheekh Maxamed, hogaamiyaha xisbiga Tala ku Nool ee u ololeeya in wadankeena Soomaaliya lagu dhaqo dastuurka Islaamka, kitaabka jaamaca iyo sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam. sidoo kale waxaan ahay musharax madaxweyne ee u taagan Jamhuuriyadda Islaamka ee Soomaaliya insha Allah. waxaan maanta idin soo horfadhiisanay inaan shacabka Soomaaliyeed la wadaagno taariikh ay leedahay Tala ku Nool iyo anigoo ah Sufyaan Sheekh Axmed. saadul la socotaanba muddo hal sano iyo bar laga joogo ayaan waxaan bilownay inaan u ololeyno in wadanka Soomaaliya ay iska bedelaan calanka hadda aan haysano oo aan soo madhignay ciladihiisa sida calanku inaanu sameeynin qof Soomaaliya in calanka Soomaaliya uu yahay astaama diimeed u taagan diimo kaleeto oo ah afar sida diinta Satanism, Paganism, Wicca and Kabbalah. waxaan kaloo banaanka soo dhignay calanka Soomaaliya inuusan dhammaan in haleekaati ka turjumin taariikhda Soomaaliya in haleekaati ama dhaqamada Soomaaliya waxaana waan leenahay. arrintaasi waxay keentay dhibaatooyin fara badan shakhsiyaadka qaarkood inay dareemaan. isla markiiba waxaa ila soo xiriiray dowladda Soomaaliya. waxaa la ballan qaaday in haddii aan joojiyo ololaha ka dhanka ah calanka la isiin doono lacag. arrintaasi waa iska diiday. sidoo kaleeto markii aan taa iska diiday waxaa la ballan qaaday in la isiin doono xil haddii aan iska dhaafo. waan diiday iyadana waxaana bilaabatay markaasi in la cabsiyo oo la yiraahdo waa lagu dilaya. arrinta iyada dhagumana dhigin. isla markiiba dowladda Soomaaliya waxa ay qabatay shirkaas jaraa'id oo aan rabo maanta inaan la wadaago erayadii iyo wixii la yiri. aan si kooban idin siiyo. shirka jaraa'id waxa markii hore lagu amray dhalinyarada isticmaasha baraha bulshada inay weeraraan calankana difaacdaan. arrintaasna waxaad ogtihiin in ay sameeyeen waliba si fara badan loo sameeyay. waxaad ogtihiin in lagu weeraray erayo beena sida inaan dilay dad aanan anigu shaqo ku lahayn, inaan soo dhacay lacago, inaan kufsaday dumar, in aan ahay shakhsi jabhad ahaa oo la soo dagaalamay jabhaddii Caydiid, inaan sidoo kale ahaa bodyguard ama waardiye u ahaa. arrimahaas oo dhani way beenoobeen balse waxay ahaayeen kuwo loogu talagalay in lagu khalkhaliyo laguna cabsiyo. qorshuhu wuxuu ahaa inaan arrintaas aan wado oo ahayd in calanka Soomaaliya la bedelo, in aan ka tanaasulo ama aan cabsado, haddaan cabsi waayana in lagu dilo. waxaa la isticmaalay arrimo kale oo fara badan oo in lagu kiciyo ama la magacaabo shakhsiyaadka la leeyahay waxaa dilay Sufyaan Sheekh Axmed qabaa'ilkooda oo dad ila degan meesha anigu aan deganahay si dadban la iisoo weeraro halkaasna lagu dilo. arrimahaas oo dhani waxay ku jiraan videoga soo socda. aan rabaa inaan idin la wadaago laba qodob horaanba. qodobka ugu horeeya wuxuu yahay kow in videoga ama shirka jaraa'idda dowladdu ay qabatay lagu amrayo dhalinyarada baraha bulshada isticmaasha inay weeraraan. labo in shakhsiga arrintaas oranayaahi uu ugu sheegay dadka ama ugu sheekeeyay in haddii calanka la bedelo ay lumayso xornimada Soomaaliyeed. arrintaas oo runtii qalad ahna qof aan cilmi lahayn waxa uu ku hadlo. waxaa kaloo videogaasi ku jira in aniga la idilo, laguna dilo ama in la daldalo ama in la ceejiyo ama in sida caadiga oo dadka loo dilo dhagax lagu dilo. dhammaan marka aad daawataan arrimahaas oo dhan waxaan isku soo laabanaynaa videogan. waxaan rabaa inaan idin la wadaago ilaa iyo markii arrinta la yiri ilaa iyo maantay wixii ka soo baxay iyo guulaha Tala ku Nool ay gaartay. waa mahadsantiin daawasho wanaagsan. Cabdulqaadir Nuur Xuseen Maax, gudoomiyaha Akademiyadda Cilmiga Fanka iyo Suugaanta, ayaa ugu horreyn furay dood cilmiyeedka. war maanta miyaa soo baxay nin oranaya calankii sax ma ahay dib ha loogu noqdo. aad iyo aad wax looga xishoodo oo loola yaabo oo laga yaqyaqsado way waxaasoo kale. waxaynu rabnaa haddaynu Soomaalinahay dhalinyarada baraha bulshada ka shaqeysa war difaaca waxyaabaha qiyamka iyo values-keediina oo calanku uu ka mid yahay. waryaarahe haddaan calan weyno dhalinyaroy oo maanta la isku nin baa laga sheegay waxa la isku haystaa cunahayga waxa la isku haystaa hadduu calankii yahay haddaan calan weyno xornimo ma helayno. xornimo meesha way ka baxaysaa. cidda ku qanci weysay ee damacday maanta intaasoo sano kadib xorriyaddii iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed inay shaki geliso maxay naga mudan tahay? ma dhagaxaan ku dilnaa, ma ceegaan ku dilnaa, ma geedaan ka lalminaa, maxaan ku samaynaa? ninka waxaan keenay abooyaalo yaa ka dambeeya. yaa iiga jawaaba talow yaa iiga jawaaba ninka yaa ka dambeeya
cadow Soomaaliyeed ka dambeeya wiilka yarka ee wax yaqaan aan la arag meelo ka yimid aan la aqoon taariikh aan lahayn cid ka hadashay mawduucan markuu ka hadlayo wax soo hadal qaaday ka hor aan la arag ya inuu waxaan sheego waa loo dhiibtay markale waan idin salaamaya waxaan u malaynayaa inaad dhammaanba daawateen videoga sidaad aragteenba waxaa ku jira shakhsi oranaya haddii calanka Soomaaliya la bedelo xornimadu waa u dhamaatay shakhsigaasi waxa uu u shaqeeyaa dawladda Soomaaliya waxa fahmi kartaan dhibaatada haysata wadankeena iyo in shakhsiyaadka noocaas oo kala ahi wadan ay u shaqeeyaan oo waliba ay joogaan baaritaankii ama cilmi baarista ay joogaan meesha wadankaas uu gaari karo ninka odagaha ugu dambeeyahay wuxuu leeyahay ma waxaan ku dilnaa dhagax ma daldalnaa mise waa ceejina taas micnaheedu waxa uu yahay shakhsi aan runtii lahayn garaad ku filan aniguna sidaa ku dhiman maayo laygumana dili karo dhammaanba arrimahaasi waxay ku turjumayaan qorshihii dowladda Soomaalida ay ugu tala gashay inay igu disho la igana sii jeediyo calanka inaan waxba ka sheegin waxaan rabaa maanta inaan idin laago guulaha tala ku nool ay gaartay oo ku saabsan calanka in la bedelo ugu horeynba shacabka Soomaaliyeed intoodii wax baratay waxa ay ku baraarugeen arrintaas isla markiina waxa ay galeen baaritaan qoto dheer dad fara badan khaasatan laba jaamacadood oo waaweyn oo wadanka Soomaaliya ka jirta iyo dad kale oo wax bartay dhamaantood waxay ku yimaadeen go'aanka ah in ay sax tahay fikirka tala ku nool khaasatan fikirka Sufyaan Sheekh Axmed uu banaanka soo dhigay waxay ugu raaceen waxay garteen in calanka Soomaaliya uu yahay calan ka turjuma diimo kaleeto calan aan Soomaaliya samaynin calan ay ceeb tahay in aan haysanaba waxaa sidoo kale soo baxday in shacabka Soomaaliyeed ay ka doodi karaan fikrada qaarkood waxaan rabaa inaan la wadaago dadka ilaa iyo maantay arintaas ka soo horjeeda doodaha ay isticmaalaan iyo waxa ay ku doodaan si aad u fahantaan waxa laga yaabaa qaarkiin inaad ka mid tihiin dadka fikradaas qaba waxaa lagu doodaa dadka caalanka difaacada ayaan ka hadlayaa waxay ku doodaan 60 sano ayaan soo haysanay arintaasi waxa weeyaan waa waxaan runtii aqlina ahayn cilmina ahayn 60 sano soo haysanay xujana maaha xalna maaha ina wajadna abaana macnaheedu waxa uu yahay waa qof dhagala aan aqli lahayn cilmi lahayn wax ku baaro balse ku tiirsan fikirkii awowyaalkood iyo aabayaalkood ay ka heleen aayada quraanka Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku leeyahay bal qaalu inna wajadna abaana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun ama muqtadun macnaheedu taas waxa uu yahay shakhsiga bini aadamka ee maanta doodiisu ay tahay 60 sano haysanay walaalkayga islaamka ama walaashada islaamka ahay waa luusanta 60 sano haday qalad ahayd ka hor 60 sano ka hor haday qalad ahayd maantana waa qalad haddaan garanay maantay waa inaan bedelo dadka qaarkiis waxay ku doodaan shangeeska dhexda ugu jira waxay ugu yeeraan xidig inay tahay waxaan la wadaagnay shacabka Soomaaliyeed sawirka xidigta Allah subhanahu wa ta'ala samada ku qurxiyay ay leedahay waa nal ayuu la mid yahay ma aha shangees ma laha 10 gees ma laha 6 gees ma laha calaamada shanta gees leeyaad aragteen waxaa lagu yaqaanaa caalamka cabeza del diablo the head of the satan الرأس الشيطان madaxa shaydaanka waa sida loogu yaqaano waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inuu laago qarnigii waqtigii laga soo bilaabo 1200 ilaa 1334 calaamadaas shan geeska ah waxa isticmaali jiray diinta Christianity-ga waxay u isticmaali jireen oo tusaale uga yahay shantii dhaawac ee soo gaartay Nabi Ciise labada calaacalood iyo labada lugood iyo feerta sida yiraahdaan markii la daldalayay si sheegan ayagu markii ay sameeyeen baaritaan dheer oo ay baareen arintaasi oo ay ogaadeen in loogu horeeyay loo isticmaalo diimaha aan soo sheegnay Satanism, Kabbalah, Wiccas iyo New Pagans inay faraha ka qaadaan oo ay ka tirtiraan taariikhdooda arintaasi waa ku guuleysteen maantay ma aha calaamad Christianity waa isticmaalaan bal dadka Soomaaliyeed iyo dad badan oo islaam ah ayaa lagu qaldaa arintaasi dad kaleeto ayaa waxay ku doodaan sidoo kaleeto hadday markay fahmeen in calaamadani ay tahay calaamad shaytaan in diimo kaleeto lagu caabudo waxa ay ku doodaan sidoo kaleeto waa hadba saan u qaato waxay yiraahdaan inama al-a'maalu binniyaat waxaan leenahay dadka doodaas qaba walaalkayga islaamka walaashada islaamka ah sida aad xadiidka u qaadatay ma aha inama al-a'maalu binniyaat macnaheedu ma aha intaad isqaawiso oo banaanka aad marto ama wadada aad marto inaad aaminto hadana inaad ar wadato no sidaas ma aha inama al-a'maalu binniyaat waxa looga jeedaa
qofka bini aadamka ahi micnaha ay leedahay waxaa looga jeedaa wax ka duwan waxyaabaha physicalka oo la taaban karo oo aad adigu intaad qaadato aad tiraahdo sidaan ayaa loo haystaa ana sidaan ayaanu qaadanayaa micnaheedu haddii ay kasoo horjeedo diinta islaamka waa inaad faraha ka qaado waxaa loo yaqaano shangeeska ee ay isticmaalta gaaladu shaydaanka lagu caabudo ama caalamka intiisa kale looga yaqaano cabeza del diablo madaxa shaydaanka the head of Satan الرأس الشيطان sida caalamka dhan u yaqaano ee shacabka Soomaaliyeed looga dhaadhiyay inuu xidig yahay ma aha xidig walaal waa shangees pentagram waxaa la soo isticmaalay ilaa waqtigii nabi Muuse saxaradii la dagaalamaysay calaamadu ah macnooyin fara badan ayuu leeyahay waxaa sharaf daraa waxaa dulinimo in maantay shacabka Soomaaliyeed intooda jaahiliinta waxba aqoonin iyagoo calankii qaarkood u difaacaya waxaan ahayn aqli ama cilmi ay ku dhageeyeen arintaas arinta kaleeto ee ka soo baxday doodii calanka waxaa ka mid ah saad aragteenba maantay shacabka Soomaaliyeed dhammaanba qabaa'ilka ay ka kooban yihiin qabiil walba wuxuu samaystay calan isaga u gooniya qaarkood waxaa ilaahay maadiisa inay madaxii shaydaanka ka bixiyeen calankooda ujeedada keentay waxaan rabnaa inaan la doonaagno waana qayb ka mid ah guulaha tala ku nool ay gaartay markii nala soo weeraray tala ku nool haddaan nahay ee nala kula doodayay calanka ee nala caynayay ee nala ugu eedeynayay dambiye anagu aanaan lahayn doodihii waxaa ka mid ah shakhsiyaad ka mid yihiin inay calanka Soomaaliya u difaacdeen ayagu inay iska leeyihiin oo ay gooni u tahay si ay dhacday oo dad badan oo Soomaaliya oo dooda ku jiray calanka Soomaaliya ay u difaacdeen si qabiilaysan ama ay ka dhigeen calan ay leedahay jufo dadka Soomaaliyeed intooda badan arintaasi waxay ku noqday wax cusub waxay la yaabaan waxay la amakaagaan dad aan fahamsanayn ama aan ogeyn taariikhda calanka iyo sida ay ku timid waxay barteen waxay galeen baaritaana inay soo ogaadaan sababta nina uu leeyahay calanka ama koox ay u leedahay calanka waa in la bedelo kooxina si gooniya oo qabyaaladaysan ay u difaacanayso arintaasi ugu dambeyntii waxay keentay in qabiil walba oo Soomaaliya uu samaysto calan isaga u gooniya maadaama calankii laga dhigay calankii Soomaaliyeed ban ku wadnaaye laga dhigay calan qabyaaladaysan waa runtii guul u soo hoyatay reer tala ku nool haddii aan nahay ama shacbiga Soomaaliyeed waxaan saas u leeyahay waxaan u ololaynaa in la bedelo calanka wata madaxa shaydaanka in laga bedelo meesha haddii arintaasi aan rabnana in calamo badan la samaysto oo qabiil walba ay calan samaysto waxay ka mid tahay soo dadejinta dadka Soomaaliyeed inay fahmaan in calankan ay wax ka qaldan yihiin ama calamada badan oo la samaystay ay dib ku noqonayso wadanka Soomaaliya sida daraadeed in la tirtiro dhammaanba calamada jiro oo dhan oo Soomaaliya ay isku timaado hal calan oo ay isku garato waayo qaybinta ama lahaanshaha calamo kaleeto ee fara badani waxay keeni karaan in wadanka Soomaaliya uu si kala qaybsamo inay lunto midnimadii Soomaaliyeed inay timaado in la si kala gogo arintaasi shacabka dan ugu ma jirto waxaan leenahay marka waxaan u soo jeedinaynaa dhammaanba shacabka Soomaaliyeed intiina wax baratay inta fahamsan waxaan ka hadlayno inay ku baraarugaan nala qaataan ololaha in calanka Soomaaliya aan maanta haysano aan u naqaano calanka uu ku jiro madaxa shaydaanka ama calaamada madaxa shaydaanka wata calanka diimaha kaleeto lagu caabudo calanka qof Soomaali uusan samaynin calanka nala ku qasbay ama nala ku khiyaamay inaan iska bedelno oo aan samaysano calan Soomaaliya ku midaysan tahay ka turjumaya dhaqankeena diinteena iyo dalkeena lana tirtiro dhammaanba calamada kaleeto ee maanta jira kuwaasoo runtii ah dhibaato ku soo korortay wadanka Soomaaliya waxaan idinkaga tagaynaa haddaan reer tala ku nool waxaan u taaganahay in wadanka Soomaaliya lagu dhaqo dastuurka islaamka kitaabka jaamaca iyo sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxaan aaminsanahay dhammaanba shacabka Soomaaliyeed inay yihiin dad islaama waxaan idinkaga tagaynaa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh